kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu waaweyn intaad muuqaalkan daawanaysana waxa ku soo gudbin doona Kuuriyada Waqooyi oo mar kale ku dhawaaqday inay taageero military ay u fidinayso hogaamiyaha cusub ee Iran iyadoona sheegtay in mar walba ay garab taagan tahay waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona Iran oo la wajibartay duqeymaheeda bartilmaameedka gaar ahaan saldhigyada militariga ee Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe sidoo kale qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta cabsi xoogan waxa soo food saartay Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil xogii u dambeeyay dagaalka xilligan ka soconaya bariga dhexe ayaa halkan kugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furusay ku soo gaaray muuqaalada kale xiga subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saarsi oo gaaray asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno Iran ayaa markaan waxay la wajibartay duqeymaheeda iyo sidoo kale weeraradeeda kaasi oo u adeegsanayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale gantaalada nooca balastikada iyadoona si gaar ah ay u bartilmaameedsanayso saldhigyada military ee Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe iyo sidoo kale qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta Iran ayaa sidoo kale la wajibartay weerarada ay magaalooyinka Israa'iil ay la bartilmaameedsanayso iyadoona warar soo baxaya ay sheegayaan in guriga ee ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ay si gaar ah u bartilmaameedsanayso Iran waxaana wararka ay sheegayaan in Israa'iil ay qabteen dhowr gantaal oo balastik ah kuwaasi oo ka yimid dhanka iyo Iran wararka kale soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in wasaaradda caafimaadka ee Israa'iil ay sheegtay in dagaalka Iran ay kaga dhaawacmeen 205 qof 24 saac ee la soo dhaafay kuwaas oo wasaaradda ay ku sheegtay inay isugu jiraan dad shacab ah sidoo kale kuwa ciidan ah warbixintan oo ka soo baxday Israa'iil ayaa waxa kale lagu sheegay in 2557 qof ay dagaalka kaga dhaawacmeen tan iyo wixii ka dambeeyay 28 Febraayo oo ah maalintii ay weerarka wadajirka ay fuliyeen Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka kaas oo si toos ay u bartilmaameedsadeen hogaamiyihii Iran Ayatollah Ali Khamenei dagaalka bariga dhexe maanta waxa uu galay maalinkiisii 12aad iyadoona xaaladda bariga dhexe markaan ay noqotay mid faraha ka sii baxday oo qaybo kamid ah ay dul hayhaawanayaan diyaaradaha dagaalka ee Iran iyadoona sidoo kale halkaasi ay dhulka lala simay qaybo kamid ah saldhigyada military ee Mareykanka uu ku lahaa bariga dhexe sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta dhinaca kalena hadii aan u waacano hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wacad ku maray in uu taageero military mid dhaqaalaba uu la garab taagan yahay hogaamiyaha cusub ee dalkaasi Iran kaasi oo lagu bedelay Ayatollah Ali Khamenei kadib markii 28 bishii Febraayo ay duqeyn ay ku dileen Israa'iil sidoo kale Mareykanka hogaamiyahan cusub ee Iran ayaa waxay Israa'iil iyo Mareykankaba ay wacad ay ku mareen in ay beegsan doonaan isla markaana ay duqeymo ay ka fulin doonaan halka uu ku sugan yahay ayna marsiin doonaan wadadii uu maray Ayatollah Ali Khamenei balse hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale hadalkiisii ku celiyay in Iran uu la garab taagan yahay taageero military mid dhaqaale iyo sidoo kale mid hubeed intuba waxa uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu mar kale uu ku hanjabay in hubkiisii nuclear-ka uu u diyaarsan yahay isla markaana kaliya uu sugayo hadal uu afkiisa ka soo baxo kaliya hadii uu sheegay Israa'iil sidoo kale Mareykanka ay ka baaqsan waayaan dagaalka ay kula jiraan Iran uu hubkiisii military iyo sidoo kale midkiisa dhaqaalaba uu ku wareejin doono hogaamiyaha cusub ee dalkaasi Iran kaasi oo bedelay Ayatollah Ali Khamenei isla markaana uu yahay wiilka uu dhalay Ayatollah waxaana sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi in uu taageero walbaba uu diyaar u leeyahay isla markaana uu sheegay in uu ka caawin doono in uu la beegsado goobaha bartilmaameedka u ah Iran oo ay kamid yihiin saldhigyada military ee Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe sidoo kale qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta isagoona sheegay in xitaa diyaaradaha dagaalka noocoodii ugu dambeeyay uu ugu deeqayo Iran si ay iskaga difaacdo dulmiga iyo daansiga ay ku hayaan Israa'iil sidoo kale Mareykanka waxa uu sheegay in hadii loo baahdo inuu dagaalku uu qayb uu ka noqdo xataa uu diyaar u leeyahay Iran waxa markaan si cad ah u garab taagan
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kuwaas oo si wadajir ah u sheegay in ay mar walba ay garab taagan yihiin Iran isla markaana aysan ka gorgortami doonin dagaalka ka socda bariga dhexe sidoo kale qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta labadaasi dhinac waxay wacd ay ku mareen in Iran ay ku garab istaagi doonaan hubkooda iyo sidoo kale dhaqaalahooda hadii ay u baahdaan ciidanna ay la garab taagan yihiin si ay iskaga difaacaan daandaansiga ay ku hayaan Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka haddii aan u soo laabano xiisada bariga dhexe ayaa mar kale si weyn u kacsan kadib markii dawladda Iran ay ku dhawaaqday inay qaaday mid kamid ah weeraradii ugu xooganaa ee abid ku beegsatay Israa'iil weerarkan ayaa la sheegay in loo adeegsaday gantaalo iyo sidoo kale diyaarado aan duuliye lahayn kuwaas oo bartilmaameedkoodu ahaa saldhigyo military iyo sidoo kale goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha dalkaasi Israa'iil waxaana gudaha dalka Israa'iil ka dhacay weeraro aan kala joogsi lahayn sidoo kale gantaalo sida roobka ugu daadanaya qaybo kamid ah magaalooyinka Israa'iil taasi oo howlgaladaasi sidoo kale weerarada ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay Iran iyadoona Iran wacd ku martay inay dhulka ay marsiin doonto qaybo kamid ah magaalooyinka bartilmaameedku ah ee Israa'iil ay leedahay sidoo kale qaybo kamid ah saldhigyada military ee muhiimka ah ee Mareykanka iyadoo hore Iran dhulka u dhigtay saldhigyo military oo Mareykanka ku leeyahay qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta iyo sidoo kale Israa'iil iyo sidoo kale bariga dhexe Iran ayaa sidoo kale waxay sheegtay ama war qoraal ah oo ka soo baxay Mareykanka ee wasaaradooda warfaafinta lagu sheegay in halkaas ay kaga geeriyoodeen 205 qof intii uu socday dagaalka bariga dhexe ee u dhaxeeyay Israa'iil Mareykanka iyo sidoo kale Iran ayaa sidoo kale waxa ay markaana ay sii sheegtay in dagaalka aysan joojin doonin isla markaana hadii uu socdo muddo sanado ah xataa ay diyaar u tahay Iran sidoo kale waxay diyaarisatay hubka noocyadiisa kala duwan kuwa balastikada iyo sidoo kale hubka nuclear-ka iyadoo sidoo kale ay saacidayaan Ruushka iyo sidoo kale hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxaana dagaalku uu noqday markaana mid si balaartay maadaama markii hore uu ku koobnaa kaliya Iran Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka balse xilligan ay si cad ay ku soo bireen Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi waxaana Iran markaan ay heshay garabyo ka barbar dagaalama maadaama markii hore dagaalka ay kaligeeda ay ku aheyd isla markaana qaybo kamid ah wadamada Carabta si aad ah ugu soo horjeesteen Iran isla markaana ay la soo safteen wadamada reer galbeedka balse Iran aanan u joojinin oo beegsigeedii wadamada Khaliijka Carabta ay si kordhinaysay iyadoona halkaasi qasaaro culus uu ku soo gaaray wixii xoog ay ku soo kordhana muuqaaladeena xiga ay idin kugu soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahay muuqaalka inoo share garay laag inoo saar si uu gaaro asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada